السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا دمانتين وعد وضع السلامي ميل بأدونك الدعالة دي ساكوة جوكتان channel كدنا قد دعوانيسان وشمس حسن حنا كسو دوادا إذا لا هاي مرلوات مر saddexaad bo hilmaamo hadalku ma jiro waa Shamsa Xasan qofkan ila hadlaayo Shamsa Xina officialna waa channelka nagala socoto ama aad naga daawanayso asxaabteeda soo dhawaada in la dhamaantiin welcome ma sha Allah tabarakallah asxaabe inta dhimatay ilaahay ha u wada naxariisto naxariista jannada Allah ka waraabiyo samir iyo iimaan ehelada iyo qaraabada iyo asxaabtoodii ee ka tageen samir iyo iimaan Allah ka wada siiya dhamaantood soo dhawaada in leeyahay inta xanuunsan caafimaad degdeg ah rabbi uga baryeena inta caafimaadka qabtana caafimaadkooda ilaahay taam ha uga sii dhigo dhamaantiin soo dhawaada in leeyahay waa anigoo ah Shamis soo dhawaada dhamaantiin ya Shamis way timid caawo maxay noo sidaa maxay sanoo keentay bismillaah waxaan wada qiso yar oo ku dhacday gabar walaasheen ah ku nool magaalada Muqdisho waxay dhahday waxaan deganahay Muqdishaan deganahay dhahday waxay tiri anoo galaaskii 8aad maraayo dhahday galaaska 8aad iskuulka anoo maraayo ayaan wiil isbaranay dhahday halkaas wiil iskala halan qaadnay tiri ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare aan isla soo dhameysanay tiri gabadhan waxay dhahday aad iyo aad oo ii jeclaa ana sidoo kale aan u jeclaayay tiri xaqiiqdu waxay tahay tiri aniga waxaan ka soo jeedaayay tiri reer sabool ah oo waxba haysanin tiri haddana ka dhalatay tiri dadka la liido macnaha oo la tafaraaruqo qofkan yee ahayd anaga horta dii aan Soomaalina waxana dilay waxay tahay yee tahay iyo yahay maxay taraan maxay haystaan halkee galaan ma ogi dadkeena wax ku saliday inta ama qiimaha ay ka raadinayaan ama qadarinta ay ka raadinayaan xaqiiqdii aniga ma aqaano waxay dhahday gabadhan baaya asigana wuxuu ahaayay tiri dadkan la yaqaano ayuu ahaayay dhahday reerkiisana alxamdulillah reer iska ladan ayay ahaayeen tiri oo waxba ka haleysneen ma sha Allah tabarakallah aad iyo aad u dhaqan ama u ladan ayay ahaayeen dhahday waxay tiri jecelkeena sidii ugu socday tiri maalmaha kabmada wuxuu isoo bandhigtay tiri in uu guursaday dhahday wiilkii imtixaankii aan u fadhinay tiri imtixaankan hadii aan ku baasno oo shahaadada aan qaadano waxa aan rabaayo idhahay tiri in aan isguursano oo hooy aan wadaagno nololna aan qaybsano inti aan waalidkeen wax ka qarin karnay ama aan la aamusneen jecelkeeni waan la aamusneen hadartaana waxaan diyaar u ahay in aan ku guursado ma iga aqbasho kaasaan dhahay tiri wax aan kuugu diido ama may ama kuugu dhaxbo meesha ma yaalaanbo hadii aad guur aad isoo bandhigatay ana waa aan ka ogolahaan dhahay tiri waxay dhahday jaamacadii imtixaankii aan u fariisanay tiri imtixaankii shahaadooyinka aan qaadanay tiri koofidii aan wada tuurnay dhahday imtixaankii aan ku guuleysanay tiri wuxuu dhahay tiri maal heblo reerkiina aabahay iyo u imaanayaan waan u sheegay la soco hay waayaan ku dhahay hooyaday aan u sheegay tiri gabar aniga iga weyneeda arinta la wadaagay tiri gabadhi ayaa hooyo la wadaagtay dhahday iyadana hooyo wiilkaas guursanaysan hadda ma baratay ma si waa hore isku daqino hooyo iskuulka markaan bilaabay waan isla bilawnay waan isla soo dhameynay ilaa heerka rabnay guurkana saa isoo bandhigtay intaasna saaxiiba ahayn oo waa wada sheekaysan jirnay waana hadli jirnay waa kaasa hay waayo gorma imaanayaan xilligaas odayaalaha isku imaaday tiri markii odayaalaha isku imaadeen ilaan oday aqooda lama waaynaay laba oday asgaratay markaas meesha waxay ka dhacdaa lahay gabadha waa idin siinay gabadha waa aqbalnay waa kaasa meherka aan iskugu soo noqono gogoshi labaad markii la soo fariisanayo abeed wuxuu dhahay meherka iyo arooska hal mar inuu dhaca raba la isku soo noqonin meherku dhacayna ma raba taas la socdo waaya xaala dhahay tiri waa lagu kala tagay afka waa liiga bixiyay tiri laakiin meher iyo waxa uu mawdhicinay tiri wali waxay tiri reerkii markay bixeenay tiri odagii iyo odaga kale oo adeer iyo is aqoodeen tiri iyo cid kale oday u socday tiri markay is aqoodeen is garteen waxay dhahday banaanka lagu sii sheekaystay kulay waxay tiri war heedhe inanta aad doonateen ma taqaaniin waa reerkeeda may ee wiilkayga noo sheegay waan is jeclaadeen annagana waa ka aqbalnay inkasta reer sabool ay yihiin wiilkeena noo sheegay waxba ay haysanin wiilkaygana jecel oo ku dhahay wiilkii aabihiis sidaas ugu doonay intaas ma reerka ku diidaysiin wiilka aabihiis dhah
maasha allah waa dad fiican waa maya waayo reerkan waa reer hebele mataqaanid miya maba la guursaday ilmaha ay ku dhali doonto markaa guursato hadhowti maxaa leeyahay ilmihii hooyadood boonta ahayd bal arag wuxuu ku hadlaya odaygaas weyn wuxuu goobta lasoo fariistay bal arka wixii reerka brikiya loo wacay wax ma ku sheegaa xalay ha naagta aad dooratay yaa isku leebal ma lihine mana guursan kartid yaa agteeda dambane kama dhawaan kartid ala dhahay tiri yaa naagada u baahanta mid kale ii keenso hadii kale anaa ku doonayo oo kuugu daraayo wiilku qaracmay tiri habeenkii uu soo wacay tiri baysaa dhacday war ma ogtahay saasaa dhacday aabahay inuu ii ka soo doono waan ku faraxsanaa saasaan kadib dhacday odayaaliha wada sheekaysta saasaa la sheegay abay adiga yaa tahay hatta inkiis qabiil markii hore ma isweydiinay markaasaan ku leeyahay aniga aniga reerkaasa ahay gabartu maalaha ahay reerkaasa ka dhashay alxamdulillah waxay ga haleysan mana naag iga qurux badnay inay jirtaan oo ma maleynaya ku dhaxeeyay markaas uu dheeyay waa xaqiiq qof gabar ka qurux badan ma jirtaan oo maleynaya maasha allah tabaarakalla ilaahay qurux uu ku siiyay heebad uu ku siiyay laakiin aabahay uu ii diiday in aan ku guursado waayahan dhahay tiri go'aanka aabaha miyaad la qaadatay mise go'aanka la rabtaa inaad ila wadaagto ama ii sheegto markaas uu ugu dhahay tiri anigu waan ku jecelahay mana ka maarmo laakiin aabahay waa ku adkeenaya aniga ayaa rabaan leeyahay aaba wuxuu kaama gelin ii doon haye waay arin si la isku jijiido wiilkii aabihiis waxay tiri muddo socotay tiri wiilka ultim wuxuu ii soo bandhigay tiri in aabihiis oo negative taagan yahay tiri reerkaasna maba isgalnaba mana isguursano in la dhahayo ii soo baxday dhahday wiilku waxaan dhahay tiri okay maxaa tala ah marka waayahay hadii aabaha oo ku dhahay reerkaas isma geeyno mana isguursano maxaa tala ah oo aad haysaa markaas oo ugu dhahay tiri tala kasta aan ku soo jeediyo ma igu raacay oo ma ogolaanaysaa raalina ma ku noqonaysaa markaas aan ku dhahay tiri of course maxaa diiday inaan raali ku noqo way qof aan jecelahay tahay qof aan intaas jecelkiisa aan soo dhisaaya tahay qof aan intaas aan sugaaya tahay aad iyo aad aan ku jecelahay mana ka maarmo go'aan walba aad ii keento raali ayaan ku ahay waxay dhahay tiri reerka ayaga ogolaan doono goortay doonaan ya waa isa soo meersaneynaa waan isa soo meersaneynaa waxay tiri ani ma dhihi kara reerkeena ku geenaya reerkii markay boodeen aabahay iyo hooyadeen waxay isku raaceen tiri ama ay isku garabsadeen tiri reerka saas noo jinsi faquuqay gabar wiilkooda gabadheena ma guursanayo haddii xataa ay ogolaadaan ay yimaadaan beritoole hooyo kuma noolaan kartid ali dhahay tiri mana rabi inay ku guursadaan ogow taas haye hooyadeen waxay tiri hooyooyinka aad u kululay ku jirtaa ay dhahday xaqiiqdii waxay tiri waaya hooyan ku dhahay dhahday wiilkii aan waa balanay tiri waa soo mehersanay tiri waa la israacay gaariga la kireystay tiri wiil asxaab asiga ay yihiin ana gabar saaxiibtay aan hore u watay tiri waa la israacay dhahday waan soo mehersanay tiri xaqiiqdii gurigeena ku soo noqday tiri waan iska joogay dhahday adiga 5 bilood markaan isqabnay tiri 5 bilood kadib waxay tiri uur ayaa igu soo baxay dhahday aad aan u xanuunsaday tiri jiro qandho dhakhtar hooyada dhakhtar walba igeysa dhakhtarkii ugu dambeeya soo dhahay tiri oo guri maama gabadhaada uure leedahay 3 bilood uureena leedahay waaga ku bariyay tiri hooyada naaya yaa ku guursaday hebel naaya yaa ilmahan iska lahaa leedahay tiri ku dhahay tiri hebel ma reerkiina dhahay reerkaas isma guursano mana isgalno aaba ilmahan iskala miya aaba raali ku tahay macquul miya taasaan leedahay tiri yaa waxa aad ku hadlayso afkaaga waxa ka soo baxay iyo dhagahaada ma ismaqlaana leedahay tiri maxay taa waxa ku hadlaysid hooy waa kaasaan leedahay tiri maxaa ninkaas ay qabo waan isjecel ninkaygana waa ilmahan nasa iskala waxa ka bedeli kartaa waxban hay ninka uu caliir uu hana noo yimaado sidoo ugu dhaqsiyaha badan hay waa wiilkii wacday abuu saasay jirto waa ku faraxsanaa farxad meel asgeema wahayo ya labada reer hadda ogolaanayaan horta uur maliid oo hadda ogolaanayaan dhuweer maxaa ka galay markaasaan ku dhahay tirabo hadday diidaan ka war hadday diidaan Soomaaliya ha gacanta is qabsanayna magaalada ba oga tageynaa waayahay aabihiis oo la tagay tiraan gabadha uur ay leedahay waana xaamil hooyadiis way ogolaatay dhahday aabihiis diiday iyo adeerkiis ayaa diideen hooyadiis way ogolaatay hooyadiis oo sheegay tir in oo ila baxsanaay gacanta igu dhagaay meel alla meesho doon nala aaday
hooyadii way ku raacday tiri aniga aabahayna sidii uga diiday tiri hooyadeen way nagu raacday tiri aniga sidii aan isku raacnay tiri malaha anagoo gaara sii saaranay tiri aabihii maqlay tiri ciidanaaba loo soo dirsaday tirno hadduu diido inuu idin soo raaco haddii oo diido xabad ku dhuftaa leer lugaha iiga soo jibiye ii keena anaa baansanaaye ya lugaha iiga soo jibiye guriga ii keeno yar anaa baansanaaye waxay tiri baawar anagoo sii saaran naga qasnayna tiri qosolkeeni wacdeena dhacaysay tiri magaalada kasii baxayna tiri baawar tiknika anagu la horgooyay dhahday soo deg maxaad u baahneedeen oo yiri ma soo degayo maxaad aheedeen nina bistoolad madaxa ka saarnay bistooladii kula dhagay dhahday bistooladii markuu kula dhagay tiri ninkii wuu sii daa ninka la soo orday tiri qore xabadoo ku dhuftay tiri lugta bush mid kaloo gaari ku jira xabad kala soo tuuray tiri dhabarka oo ga dhacay tiri wiilka hadda waxay tiri inta dambe oo dhan wuxuu ka noqday tiri naafo ever ka noqday tiri ma dhaqaaqaayay tiri ma hadlaayay dhahday sida qof waalan oo kale oo noqday tiri anigana waxay tiri xaamila ayaan ahayd tiri guriga hooyadeena ma joogiye tiri ninka saas la yeelo gurigiisina ma joogiye dhahday labada meelba meel aan ku suganahay tiri oo leedahay tiri allay lehe meeshaas ay gabadhan ku sugan tahay waana xaamile ha loo gargaar la dhahayo tiri labada meelba dhanba ma jiriye tiri dhinaci dharigii labada dhinac ka gubtayna waa noqday tiri meel aan ciirsadane ma aqaanay dhahday meel aan afka aadiyane ma aqaanay tiri abaay waxaan qisadan kuula soo qaybsaday tiri ama aan kuula soo wadaagay dhahday xanuun fara badan ay haayay tiri ilkaami aad aan isku ilkaambiye tiri aad ayaan isku caburiye tiri uurna waa leeyahay xaamilaan ahay meel aan tala ka bilaabane maba aqaanay tiri meel cidlaaha soo istaagay tiri meel aan tala ka bilaabane waa aan la ahay tiri dhibaatada aan igu sii fara badanaysay tiri guri ee habaryartay leedahay tiri marna wanaag ligala dhaqmaayo tiri marna xumaan igula dhaqmaayo tiri ayaan ku noolahay dhahday teedi baaba tokala ma wax u qaban karaa tiri teedi ama la ciiraya ay tiri caloosheedan bilba bisha ka dambaysan way soo baxaysaa tiri dhibaato adduunyo ay haysatay tiri culaaskan ay haysto in rabbi iga dulqaaday tiri ya irid qaar qabtana rabbi ii furay tiri waxaan idinka baryayaa ama idinka codsanayaa ay dhahday gabadhan in aad ii soo duceysaan ninka i qabana aad u soo duceysaan ay tiri xaqiiqdii koomo ku jira istaalku yaalaa dhahday wax u yimid iyo wax ka tagay toona ma garanaayay tiri reerkiisana waxay tiri xataa wiilkiina dhibaatadaas ku dhacday aabahiina asaa ku diray oo ku hagaajiyay dhibaatadaasaan qabnaa ama heesate gabadhaana ilmaha calooshi ku sido wiilkaaga ayaa dhalay walba gabadha soo xareysa xataa moos isdhihinay tiri dhibaato adduunyo ay haysatay tiri oo cidnana i hogaaminay tiri oo lugahayga aniga aan ku doontay tiri meel aan afka aadiyana waan aqoon la ahay tiri fikir iyo dhibaato iyo murugo ayaan dhaxda uga jiraayay tiri ninkaygan in ilaahay ii caafiye tiri maanta hadduu garabkayga joogi lahaayay tiri walwal kama qabeynay tiri mana u kurboon lahaynay dhahday lacana koomo ku jiraayay tiri wuu iga xanuunsan yahay ana sidoo kaleetooday tiri dhibaata ay haysatay tiri meela aadana maba aqaanay tiri iyo meela u dhaqaaqa laakiin marka garab heysatay tiri meesha doonto ayaad u dhaqaaqi kartaa tiri beeted maaha waxay tiri halii soo duceeyo odagaygan halii ugu soo duceeyo wiilkii qaban halii ugu soo duceeyo tiri anigan halii soo duceeyo in ilaahay waalidkana dhalay tiri labadeenaba nabada saamaxaanay tiri wiil ninka i qaban ilaahay ii caafiye tiri waalidkeeniya ogolaadaan tiri ama waalidkiisiya ogolaadaan tiri ii soo duceeyay dhahday dhibaato badan ayaan dhaxda uga jiraa waxaan sheekadeeda ama hadalkayga ama qisadeeda aan uga soo sheekeeyay tiri aan kula soo qaybsaday dhahday in aad duco igu soo kabtaan tiri ilaahay un irid ii furay tiri rabbi baryadiisa lagama qostay tiri culays walba oo ku hayana rabbi ayaa ka qaadi karay dhahday idinkana waxaan idinka rabaa asxaabay gabadhan walaasheen ah in aad u duceysaan mar walba iyo mar kastaba qof walba oo dhibaataysan oo muslim ah in aan u wada duceeno in ilaahay dhibka ka wada qaado nasteexana rabbi dareensiiyo caradana ilaahay waasac oga dhigo jannadana nasaba galayl cidna may dhihin qofkan waa reer hebel jannada asaa iskala lama dhihin cid walba ayaa galaya qof walbana camalkiisa ayaa geenaya jannada
camalkaaga iyo wixii kaa horeeya iyo wax aad dhiibato iyo dhaqankaaga iyo wanaagaaga unbaa kaaga horeeya marka asxaabay ha loo wada duceeyo aabahan wiilka dhalayna xaqa allaha tuso xaqa ayaa ka maqan reer hebel waxba ma tareyso reer hebel iyo reer hebel haddii ee dhibaato ee ku dhamaa lahayd ama ee balaayo ku baabi'i lahayd shanta Soomaaliya ma kala go'deen Yurubne tuugsi ma aana ku joogneen iyo wadan aan lahayn dal aad lahayn dareen ku joog waayaa la dhahay gabadhaas abaaya ah u duceeya maadaama ay wadankeeda ku sugan tahay dhibaato kalena aysan qabin u duceeya waalidka wiilkaas dhalayna xaqa allaha tusaan leenahay waa wiilkiisa xaqa allaha tuso gabadhaas abaayadeen ahne u duceeya mar walbaba u duceeya u istaaga inta islaan ah oo dhibaataysan ama dhib qabto gabadhan walaasheen ahne ha loo soo duceeyo ama dhanka aabaheed ama dhanka ninka aabihii in ilaahay u furo kaala gabadheedii soo xaro maxaa kuu cad maxaa kuu gaduudan maxaa u baahan tahay maxaa rabtaa sida loo dhaho ama ay u dareento in la jecel yahay waalidkeed ay jecel yihiin ee garabkeeda taagan yihiin marnaba aysan garabkeeda uga bixin siday u dareento ama ay u fahanto ilaahay xaqa ha tuso waalidka qaarkii xaqa rabbi ha tusaan leeyahay gabadhiinana soo xareysta idinka ayaa dhalay haddii dhanka wiilka dhibaato ay ka jirto gabadhaadana ay wiilka isjeclaayeen adiga hooyada soo jeclaatay waxaan ku dhihi lahaa gabadhaada banaanka ka soo xareyso hooyo aabo gabadhaada banaanka ka soo xareyso adiga ayaa dhalay waa hilibkaaga maclaaha ku sii deenin wiilkii ka guursaday maanta sariir saaran yahay yaa ku haleynaysa waa cidne ilaahay garabkeeda ha ka dhigo wixii xuna rabbi ha ka reebo xumaanto dhan iska tirtira wanaaga aan isfarna mar walbaba iyo mar kastaba asxaabteeda waxaan kaaga sii tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh